maanta kulanka dhacay labada gole wuxuu ka soo bilowday golaha wasiirada labada gole baarlamaanku ku soo gabagaboobay kulanka macnihiisa waxa la yiraahdaa shacabka Soomaaliyeed meel ka soo joogtaanba nabad ku saaxda la yiraahdaa nabad ku saaxda muddo badana waxaan ku jirnay walwal Soomaaliya waa jamhuuriyad madax bannaan waxay leedahay Soomaaliya saaxiibo badan kulanka maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ka hor yimid golaha wuxuu warbixin ka siinayay baarlamaanka labadiisa gole ayuu warbixin ka siinayay dhacdooyinkii mataqaanaa sababa uu kala soo kulmay iyo damacii Itoobiya ayuu baarlamaanka maanta warbixin ka siiyay runtii maanta shucuurteen iyo dareenkeena intaba lama soo koobi karo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya inay maanta si buuxda u soo ansixiyeen heshiiskan magaciisu la yiraahdo difaaca iyo dhaqaalaha lala soo galay dawladda walaalaha aan nahay ee Turkiga dawladda Turkiga waxay leedahay laba taariikhood oo waaweyn oo muddada 30 sano dalkeena u burbursanaa aan ku xasuusano 2011 markay abaarta iyo dhibaatada dadkeena shacabkeena ay la liiteen madaxweynaha Rajab Tayyip Erdogan asagoo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Turkiga ayuu asagii wasiiradiisii iyo caruurtiisii iyo golihiisii mataqaana wasiirada iyo ganacsatada intaba ay dalka Soomaaliya ay imaadeen waxay ahayd taariikh aan la iloobi karin maanta ay noola mid tahay dadka shacabka Soomaaliyeed in anagu hadda dhalanay oo kale farxadda iyo dareenka nagu jira way noo soo gurmadeen waxaan rajaynaynaa heshiiskan lala soo galay 10 sano ah waa heshiis aad u baaxad weyn maraakiib la soo dirayaa drones iyo diyaaradihii iyo wixii oo dhan ayay wadankan keeni doonaan waxay dhisayaan mataqaana ciidamadeena badda iyo cirka iyo dhulkaba intaba difaaci lahaa iyo xarumahoodii ay noo dhisi doonaan waxaan rajaynayaa insha Allah inaan isku filnaano 10 sano kadib ciidamadeena ay la wareegaan amniga wadankeena xuduud bad iyo biri iyo ciidan taba insha Allah taala